howlgal istishaadi inqimaasi isugu jira ayay saaka ciidanka mujaahidiinta kula jarmaadeen xarun uu magaalada Gaalkacyo ka deganaa nin gaal ah oo dhawaan sheegtay nabinimo aroornimadii hore ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar isugu jira istishaadi inqimaasi ku qaaday nin gaal ah oo waayidii dambe ku caanbaxay in baraha bulshada uu soo dhigo muuqaalo uu ku sheeganayo inuu yahay nabi weerarkan ayaa ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo uu kaxeynayay haliyay istishaadiya kadibna waxaa xigay ciidamo gudaha u galay xerada uu deganaa ninkaasi gaalka ah war goor dhaweed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta sida gaarka u tababaran ay saaka weerarka lahaada ku qaadeen ninkaasi gaalka ah ee bilo ka hor nabinimada sheegtay wararkii ugu dambeeyay ku soo dhacay idaacadda islaamiga Andalus ayaa sheegaya in ninkii gaalka ah ee sheegtay nabinimada iyo 11 kamid ah askartiisa ay bakhtigooda yaalaan gudaha xerada isla markaana uu wali socdo weerarka halyeeyadii weerarka qaaday ayaana wali ku sugan gudaha xerada isla markaana iska difaacaya weeraro ay ku soo qaadeen maleeshiyaad kale oo murtadiin ah kuwaas oo ay ku jiraan kuwa bankrafta loo yaqaan ee Mareykanku uu ku shaqeysto oo fariisin ku leh gudaha magaalada Gaalkacyo